howlgalkan ay sameeyeen ciidanka ammaanka galmudug iyo kuwa miina baarista ayaa ku guuleystay inay soo saaraan miina aan weli qarxin taasi oo ku dugneed wada muhiim ah oo ku taala duleedka magaalada Gaalkacyo. dadka deegaanka ayaa gacan ka geystay soo saarista miinadana aan weli qarxin. mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in dhibaatooyinka dhanka miinooyinka ay ka jiraan deegaanka kuwaas u baahan in soo saaristooda gacan laga geysto. waa weeyir dadka deegaanka baan nahay oo meesha degan miyiga dhibaato waxaan aragnay miino meel ku jida maayarkaan u yeeranay hortiisna xarig baan ku xiranay waa bixinay. waxaan rabnaa dhibaatada meeshaas ka jirta in la kaga taxadaro oo la ka goobo adduunka saasan ka codsanaynay iyo maamulka dawladda. gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre ayaa codsi u diray hay'adaha miina baarista si ay uga hortagaan miinooyinka haraadiga ku ah meelaha muhiimka ah. maanta waxaan halkan ugu soo baxnay miinadan ay u jeedaan waa hubkii ruushka way anti tank way halkan ay muddo 20 sano ka badan ku aasnayd. ilaahay baa ummadii ka badbaadiyay dad dadka reemiga ah soo arkay ayagoona aqoon u lahayn bay inta xarig iskaga xirteen bay jiideen oo wadadii ka saareen. saakan ku soo baxnay oo qoliyihii miina baarista iyo ciidankii iyo wixii baan keenay. haddee tan ilaahay idankii dad danba waxyeelayn mayso laakiin waxaan ka codsanaynaa hay'adaha miina baarista shaqada ku leh hay'ado badan baa dalka jooga. wadadan wada halis badan bay noqotay ilaa 5 kiis baa ka dhacay sida aan la soconno. dad baa ku dhintay baabuur kala ku qaraxday. haddana waxa la rajeynayaa inay miinooyin badan ku aasan yihiin. dagaaladii sida ay u dhaceen baaritaan sax ah laguma sameyn. waxaan codsanaynaa in ummadaas laga soo gaaro oo miina baar lagu sameeyo oo waxyaabaha haraadiga oo explosive oo dhulka ku jira la soo bixiyo. waad garan kartaan dhibaatada ay leedahay. carruur baa iskaga ciyaari karta anti tank xataa geelo inuu qarxiyo waa suurtagal. marka intaasan codsan